sida laga yaabo inaad badankiin la socotaan waxaa maalmahan warbaahinta dunida qabsaday dil ay booliska Mareykanka u geysteen nin Afrikaan Amerikaan ah oo naf baxay kadib markii askari uu qoorta jilibka kula qabtay dhulka muddo 8 daqiiqo ahna ku hayay isagoo ku qaylinaya ma neefsan karo. dhacdadaas waxay horseeday rabshado la xakameyn waayay oo dhismooyin boolis ganacsiyo gaar loo leeyahay iyo dan guud lagu gubay ama lagu bilaqaystay. dibadbaxyada oo ka bilowday magaalada Minneapolis oo dilku ka dhacay ayaa ku baahay gobollo iyo magaalooyin kale oo Mareykanka ah. haddaba halkan waxaan kugu soo gudbinayaa farqiga u dhaxeeya booliska Jarmalka iyo kan Mareykanka, macluumaad la xiriira sida aad ula macaamilayso booliska Jarmalka haddii aad dalkan ku nooshahay, waxyaabaha ka reeban, waxyaabaha aad xaq u leedahay iyo waxyaabaha kugu waajibaya ama laga doonayo. haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan aan ku xasuusiyo inaad subscribe saarto si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelin doono insha Allah. inta badan bogagga bulshada iyo warbaahinta waxaa suuragal ah inaad ka aragto booliska Mareykanka oo dad madow ah xiraya, tooganaya ama jirdil u geysanaya. Mareykanka cunsuriyadda ka dhanka ah dadka madow ee systemka waa mid inta badan farta lagu fiiqo, marka Jarmalka loo barbar dhigana waa kaaf iyo kala dheeri. kalsooni darrada lagu qabo booliska Mareykanka waa mid xoogan. warbixin ay soo saartay xarunta Giffords Law ee ka hortagga rabshadaha hubeysan ayaa lagu sheegay in kalsooni xumida bulshooyinka ee booliska ay horseedo inay kordhaan rabshadaha hubeysan. rabshadaha hubeysan waa kuwa aad ugu badan Mareykanka, laakiin waxaa badan ugaarsiga ama bartilmaameedsiga dadka madow iyo goobaha ay degan yihiin bulshada Latinoga. dadka madow waa dhibanayaasha kala bar dadka la dilo Mareykanka, sida warbixintu ay sheegtay. 51% waa dhibanayaasha dadka la dilo. kala bar dadka la dilo ee madowga ah cidna looma soo xiro. taas kale ma jeedo in booliska Jarmalka aysan qaldamin ama wax dilin. sharafta qofka iyo in sharciga loo siman yahay waxay ka mid yihiin mabaadi'da muhiimka ah ee ku qoran xeerka aasaasiga ah ee Jarmalka. dabcan way jirtaa sheegashooyin ay mararka qaar qabaan ajaanibta iyo dadka qaxootiga ah oo ku aadan in loola macaamilo si ka duwan sida dadka muwaadiniinta ah, laakiin kama marna sawirka xun oo ay qaarkeen ka gudbiyaan inteena wanaagsan iyo fikirka gudaheena ku jira ee ah in la cunsuriyeeyo isla markaana dareenkeena sare u qaada marka aan la macaamilayno booliska ama dadka kale ee muwaadiniinta ah. ka hor inta aan kula wadaagin waxa aad xaq u leedahay, waxa aad samayn karto iyo sida aad ula dhaqmayso booliska Jarmalka, dadka Jarmalka ah sidee ugu kalsoon yihiin booliskooda. 88% dad lagu wareystay cilmi baaris 3 sano ka hor uu sameeyay wargeyska Stern ayaa muujiyay in dadku ay booliska ku kalsoon yihiin. 80% waxay dadku sheegeen inay booliska ugu kalsoon yihiin si ka badan dhaqaatiirtooda. 57% in ka badan inta ay ku kalsoon yihiin Angela Merkel iyo 40% in ka badan inta ay ku kalsoon yihiin warbaahinta wax qorta ee dalka. tan iyo 1990kii gacanta booliska Jarmalka waxa ku baxay in ka badan 300 qof, kuwaas oo dhimashadooda ay isugu jiraan toogasho, isticmaalka qalabka hubka korontada ah ee teaserka loo yaqaano, iyo goobo ay ku xirnaayeen oo gubtay. ku dhawaad kala bar dadka gacanta bilayska ku geeriyooday intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2017 waxay ahaayeen dadka maskaxda looga jiro ama loogu tuhmay inay qabeen cudurrada dhimirka. haddaba maxaa lagaga baahan yahay? wadashada aqoonsiga. Jarmalka waxaa ka jira waajib ahaanshaha wadashada aqoonsiga. qofka muwaadinka ah iyo ajnabigaba waa waajib inuu qofku wato aqoonsi marka uu magaalada marayo, si haddii booliska uu qabto uu isu sheegi karo ama u fududeyn karo in malafkiisa la helo ama la aqoonsado. haddii aadan wadanin waxaa lagu kaxayn doonaa xarunta booliska si loo ogaado cidda aad tahay, sida ku dhigan qodobka 1 ee sharciga aqoonsiga shakhsiga ah Personal Ausweisgesetz, inuu waajib ku yahay qofkii aan wadanin ama aan haysanin baasaboor shaqaynaya ama aan dhacsanayn oo aqoonsiga bedel u noqon kara, sida ku dhigan qodobka 1 ee farqadiisa 2 qaybta 3 ee sharciga aqoonsiga waa la ganaaxi karaa. marka xusuusnow in wadashada aqoonsiga ay tahay xiriirka ugu horeeya ee adiga iyo booliska. xogta aad la wadaagayso booliska waxa suuragal inay ku weydiiyaan xogo kugu saabsan. xogta aad la wadaagaysana qaar waa waajib, qaarna waa ikhtiyaarkaaga. kuwa waajibka ah waa magacaaga hore iyo kan dambe, halka aad degan tahay, dhalashadaada, xilliga aad dhalatay iyo meesha aad ku dhalatay. ha ka been sheegin, maxaa yeelay waa sharci darro, ganaax ayaadna ku mutaysan kartaa. marnaba xaq laguma lahan inaad ka jawaabto su'aalo ku saabsan lambarkaaga taleefanka, cidda aad u shaqayso, lacagta ku soo gasha, koox ama urur aad ka tirsan tahay, xilliyada aad socoto ama meelaha aad tagto. si kale haddii aan u dhigo, ha siinin xog ka baxsan waxa ku qoran aqoonsigaaga. baaris jireed. boolisku waxay xaq u leeyihiin inay ku baaraan jir ahaan haddii lagu tuhmo, tusaale inaad wax soo xaday, inaad daroogo ama muqaadaraad iibinayso iyo waxyaabo la mid ah. haddii booliska ay ku qabtaan, u hoggaansan, waxaase xaq u leedahay inaad ogaato sababta lagu baarayo. sida aad ula hadlayso.
haddii ay dhacdo in booliska aad iska hor imaadaan, ha noqoto baaris guud ama mid ay sabab keentay, waxaa wanaagsan inaad si degan oo xushmad leh ula hadasho. Ogow inaad askari duu u adeegsato halkii aad sii uga adeegsan lahayd aysan wanaagsaneyn, waana xushmad darro weyn. Weydii sababta iyo waxa jira. Haddii eed lagu haysto inaad faldambiyeed samaysay, xaq laguguma lahan inaad su'aalo ka jawaabto haddii uu dhib kaaga iman karo. Waxaad xaq u leedahay inaadan wax xog bixinin ilaa aad qareen kala hadasho. Xogta aad siiso waxay qayb ka noqon kartaa cadeymaha eedda lagu haysto, hadhowna dib looma sixi karo. Sidaas darteed iska ilaali oo taxadar. Baaris guri. Waxaa dhici karta in booliska ay gurigaaga yimaadaan iyagoo doonaya inay baaraan. Xaq ayaad u leedahay inaad diiddo haddii aysan wadan waaran ama ruqsad baaris oo cadaaladda ka soo baxday. Xusuusnow, booliska way baal mari karaan sharcigaas haddii ay jirto khatar degdeg ah. Ha jirto ama aysan jirin. Haddii ay taas dhacdo, waxaad codsan kartaa qof dariska ah inuu goobjoog ahaado. Waxaa sidoo kale muhiim ah inaadan wax qoraal ah saxiixin haddii aadan ogeyn ama aadan fahansanayn waxa ay yihiin. Haddii aad ka war hesho booliska oo gurigaaga albaabkiisa taagan, isla markaana aysan wadan ruqsad, waxaad u sheegi kartaa inay baxaan, marnaba ha u ogolaan gurigaaga. Way wanaagsan tahay haddii aadan ka furin oo aad weydiiso waxa jira. Cadeymo ka dhan ah booliska. Haddii aad hayso cadeyn sawirro ah oo ka dhan ah booliska kugu xadgudbay ama ku weeraray, waa qaali. Booliska waxay isku dayayaan inay kaa qaadaan, waana sharci. Tusaale, inay ku yiraahdaan waa xadgudub, laakiin adiga cadeyn ayay ku yihiin. Dacwo ka dhan ah booliska. Waad ka caban kartaa ama ka hor imaan kartaa haddii askari boolisa uu si qaldan kuula dhaqmo. Haddii lagu hanjabo, haddii lagugu xadgudbo, haddii si aan wanaagsanayn lagula dhaqmo, haddii dad kale lagaa fadilo ama karaameeyo, ama howl aad xaq u lahayd lagaa daahiyo, waxaad ku dacweyn kartaa madaxda ka sarreysa. Xusuusnow, haddii aad cabasho gudbinayso, waxaad u baahan doontaa magaca ama lambarka shaqo ee askariga. Boolisku waxay xaq u leeyihiin inay kaa mamnuucaan inaad meel tagto, joogto, ama digniino inay ku siiyaan haddii tallaabooyinkaas ay yihiin kuwa looga hortagayo faldambiyeed. Kuma furno waddo aad uga hor imaan karto. Waxaase jira waddo kale haddii tallaabooyinkaas ay yihiin kuwa lagu xadgudbayo xorriyadaada iyo xuquuqdaada uu ku siiyey xeerka aasaasiga ah ee Jarmalka qodobkiisa 104. Ma ihi sharci yaqaan, waxaanse xogtan u raadiyey si aan aniga iyo adiga aan u aqoonsanno uguna baraarugno xaqeenna iyo waajibka nagala rabo marka aan booliska Jarmalka la macaamilayno. Haddii aad waddamo kale joogto ama dalkii hooyo, waxa waajib kugu ah inaad si wanaagsan ula dhaqanto, xushmayso ciidamada ammaanka, xaqa iyo xuquuqdaadana aad ilaashato. Haddii aad ku cusub tahay channelka, aan mar kale ku xasuusiyo inaad subscribe saarto si aad muuqaalada dambe ula socoto. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Tan iyo inta muuqaalka xiga aan ku kulmayno, nabaddiino.